runtii hawlahan wanaagsan oo qabatay hawlkan u shaqoona u gaarday noo shaqada loo fududeysay in hawshu socoto runtii juhdi weyn bay geliyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa in aad ugu mahadnaqo labadii guddi ee hawsha baaxadda weyn dhibta badnay waqtigooda u horay waqti badan geliyey runtiina jafaayada ka soo baxday oo saaxiibba isbartay oo hadda waatan isbarti qaadayo marka waxay la tahay faa'iidada labaada ku soo baxday waxay ahayd barashadaas wanaagsan dadku markay isu yimaadaan oo wada hadlaan runtii waxaan aaminsanahay wax badan ayaa isbedela oo maradi la kala maqan yahay shababada xabad waxaa u yiri laba kala barada kala warla dad markay isu yimaadaan oo wada hadlaan ayay markaasi is-afgartaan waxaan u guushiya marka aad baan ugu mahadnaqaya laba guddi hawsha wanaagsan oo ay qabteen waxaan rabaa inaan oo isku mahadnaqo beesha caalamka oo waqtigooda geliyay in loo yimaadaan I really thank them for taking the opportunity to come to us and for this important occasion. Thank you so much. And waxaan rabaa marka such a leadership طبعا waxaa laga hadlayaa wax dhib badan weeye meelo kala duwan baa laga eegayaa iyadoo ujeedada u dambaysa ay tahay in la wanaagsanaado oo Soomaaliya horumarto oo wanaag aan wada jecelahay oo ay ognahay labadayadu inay saan loogu badiso kala joog maaragtay isqadarin la'aan wada hadal la'aan waxaa ka fiican walaaltinimo isqadarin wada hadal iyo in la eego mar walba lagu hayo diiradda ujeedada dambe oo ah wanaagga iyo horumarka Soomaaliya oo kulligeed ina wada deeqda ina wax camimaysana marka taas mar walba inaan diiradda ku leeyahay laakiin haddana waa iska dhibanayd oo hadalku mar walba waqtiga meelo kala duwan wax laga eegayo Abdul Wahab Sultan oo filan taariikhda aniga Abdul da saaxiibaha jacayl iga jirayo fadlan saraysa qaanay laakiin maamaayoyinkii aan ka bartay Ismaaciil hadda la jooga waxa ka mid ah geerjuru inay yiraahdaan waxa loo jeedo geena la ku doon dacalada geeda loo saaro ma Abdul waa saaxiibaan waa sax weeye laakiin dad mid aad taala walaal wax badan iska dheeraano kaasana gaarsiisay markii la xaal afartiishan inaan wada hadlayno kooxda xaqiiqiga xagga laga saaray aan islahay laakiin mar walba waxaan ku haynay diradda waxay ahayd midda ay ka wada dhaxaysa oo muhiimka oo ah inaan loo socono kana gudubno wax isku hagaajina soo sheegayna talaafaan wax dib u jireenba heshiiska maanta aan saxiixay ay ku soo gabagabowday waxaan rajeynayaa mustaqbalka isaga iyo aniga iyo dadka kale ee Soomaaliya iyo Puntland inaan ku wada shaqeyno horumarka Soomaaliya aniga waxaan jirta runtii ururada khilaafkan oo ku saabsan maamul samaynta gobolada dhexe oo aan mar walba ku celin annagu Puntland oo ah hooyadii federaalka Soomaaliyeed mar walba ku dadaalaysay in federaalku jirto marka federal maxay soo xaweeyay inay dowladda ay sameysmaan haddii aysan bulshadeen oo aysan sameysminna lama gaari federaalku oo ahay waxaan ugu horreeyay ku doodeynay oo beska noo ah marka ujeedada marna ma ahayn inaanu diidanay walaalaha iyaga dariska aan nahay inay maamul sameystaan waan ku bogaadinayna waana ku taageerayna inay maamul sameystaan waxa kaliya waxay ahayd war maxaa leedahay ka soo laabtay Puntland arrinta iyada taa laga wada hadlo ana waxaan iska ilaalinayaa laakiin haddana yaa qornahay inay maamulka samaystaan kulaas programka ilaahay waxaan rabaa marka ugu dambeyntii inaan wax ka dhigano mar walba waxaa loo baahan yahay in wada shaqeyn ma aha xukuumadda iyo dowladda Puntland ee keliya laakiin ajandaha Soomaaliya horumarka ku gaarayso oo 2016 xaggee la aadaya kabacdi xaggee loo socdaa inay tahay arrin u baahan waqti tiro badan iyo juhdi badan in la geliyo taasoo ah in gobolada kale ee Soomaaliya hadda haddii muslimku yaraatay Puntland inay maamul samaysato shirka mas'ala tirsaday gaamuray wixii annaga experience oo leenahay
يوحي عن كذا ونحسنها أنا كبير المعيرة إكسبيرينس كأنه أنا عملني أنا وكنت أقول سلوا تترجمين دورة تبتشيو وركز أنا في السنة ناس تقول شغلنا بلا إلى هذا ما نبغى حاجة بذا هنا أي المفروض نسافر على خطو سيما كاسي لسوسو ولا وكريا مرة من أنا مرة الدولة ثلاثة الحقيقة مرة حيستا سومالي تركنا لكن إنه كسومالي كلها مرة مسؤولة معي سوسو واشو isbooqasho isu imaasho ama dhaqan isu soo dhawaadaan noqoto ama maamul iyo maamulada dhismaya iyo kuwa jiraya soo dhawaashada beelaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin waqtiga ayaan celin ugu ah